في دولة بنتلان waxaa dhacday nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Shirwac Lahoor inuu ku geeriyooday xabsi kamid ah xabsiyada magaalada Boosaaso waxa shacabku uga sheegay ka geerida Cabdiraxmaan Lahoor كل نفس ذائقة الموت قف كسا يدركون الموت حينما كنتم يعني وحويان geeridu hadaad xaj ka taagan tahay iyo hadaad sujuudsan tahay salaad tukanayso iyo hadaad jihaad ku jirto hadaad sariirtaada hurdo muxuu ahaayay waad garanaysaan Macad bin Jabal oo isagoo xanuunsanaya la soo booqday oo yiri imisaan jihaad galay imisaan rag horteeda ku xaaqmeen maantana sariirtaada ku dhimanaya marka geeridu horta qofka meeshay ku haleelayso waa meeshay Allah ugu talagalay bay ku haleelaysaa waa uu dhintay geeritii Allah u timi cidi Allah hayna wax ma madisho idaan Allah hayna waxa ma disho meeshii Allah ugu talagalay buuna ku dhimanaya qofka ku dhimanaya marka الله نحرس مارتي انتي dhimatay meel kasto ay ku dhinteen hore u xukuna wax laga raadinayo dawladda ka raadinayso gaar oo dheeraadii ma jirin war aan lahayn oo argagixis leedahay ma jirin kuwa ku meeraysanaya waxyaabo kale ku meeraysanaya marka tii Allah u tibini kaas waa dhintay wiilkiisa waa social media ku hadlay wuxuuna sheegay inuu qabo suun in ABC wiilkiisu anta maxaa ka jawaabaysaa waxaan maleynayaa waa ka jawaabay su'aashaas jaamaco ودكي باويمي ودكو لبا ما هو مid waatay wasiir Lahore wuxuu ahaa in xogo badan ay dawladdan gacanta ku haysay dawladdu ma ka haysaa ma ka qaaday waraysiyo aan dad ku soo bandhigay dawladdu waraysiyo dagaalka argagixisada wali waa socdaa wax kastana maartay xilligeeday leeyihiin shay kasta xilli buu leeyahay la bandhigo ama maxkamadaha ahaato ama maartay xilli dagaal dhamaado ha ahaato xilli bay leeyihiin marka xilli hadda xoga la soo bandhigo dad baa baxsada wali dad baa inay soo dhiibaan wali muxuu rajo ka qaba muxuu ahaayay dagaal baa wali lagu jira marka xilli xoga la soo bandhigo lagu ma jiro iga soo wax yar xogtana maartay Soomaalida waxay tiraahdaa xarka geel ma wada xidhaan hadday xidhaan ma wada adkeeyaan shaqadu dadka isuguma jirto dawladdu shaqay leedahay shacabku moraalka iyo muxuu ahaayay taakulada iyo xaq muwaadinka saaran marka dawladdu shaqadeeda loo daayo baan idin oran lahaa dagaal baa socda waxa uu dhaxeeya ciidamada qaranka iyo kooxda al-shabaab idinkuna waxaad sheegaysaan oo ama jirta Puntland inay ku jirto dagaal Daesh iyo u dhaxeeya Puntland marka idinku ciidamada baxaya ee koonfur aadaya ee doonaya dagaalka inay qayb ka noqdaan aad ku qabanaysan aeroboorada iyo controlada macni hal dagaal oo kaliya baad u jeedaan wadanka guud ahaan inay ka xoroobaan cida afkaarta xaqirkaale qayb kama noqonaysan miya maarta aan ku saxo jaamaco waxaan ku yiri qorigu siyaasad buu u baahan yahay hagta qori aan siyaasad hagta lahayn ma shaqeyn karo dhalinyarada la tahriibinayay marna la koonfurta galkacyo la leeyahay oo u kaalay ah leedin qore marna la leeyahay guri mugdi oo Boosaaso ku yaala qof fayl u qaadanay leedin qore berri markaad garoonka tagtaan waxa tiraan waxaan nahay ogaadeen baan reer Cabdillaan oo Kismaayaan ku soconaa dhaha markaad garoonka tagtaan taasi ma hadda qorshe dagaal ma aha waa burburin dalka iyo dadka la burburinayo halaajin dhalinyarada la halaajinayo kuwii xamar qaarkood sanad ka hor dhaawacyo loo geeyay oo markay bogsadeen xamar joogay oo la askar baa la idin ka dhigayaa in toddobaadkan la qaaday la geeyay muxuu ahaayay shabeelle hoose la geeyay baan cadeyn ku haynaa saraakiishii laamaha kale dawladda ka shaqeynaysay oo aan military ka shaqeynin in dagaal hogaamiye la yiri oo furimaha la geeyay baad shaashadaha ka arkayseen marka qorshe la'aantaan ka digaynaa ana waxaan taaganahay hal loo midoobo argagixisada loo dagaalami lahaa aragtidana ha loo midoobo qorshaha ciidankana ha loo midoobo siyaasadana ha loo midoobo markaas baa lagaga adkaan karaa tusaalana ta Puntland baa u ah inta waxa ka xarin waxa weeye wasiir haddii aysan jirin siyaasad midaysan oo Puntland qayb ka tahay ma jiro dagaal kale oo lagu la jiri kara khawaarijta miyaa saas loo jeedaa waxaan ku siyaasad midaysan oo Soomaali leedahay oo military leh oo qorshe leh oo taageeradii shacabka Soomaaliyeed leh baa lagaga adkaan karaa tusaalana waxa ku abaan ku kunoqo adalku saddex shubiyo kugu dhicin jaamaco ta Puntland ka dhacday baa tusaalana ah in lagaga midho dhalin karo kalsoonida hoggaanka madaxda iyo qorshaha ciidanka oo wada socda